gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayre Dirir oo maanta booqday xafiiska qabashada araajida codsiga shaqaalaha 30 boos ee ka banaan hay'adaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo dhawaan ku dhawaaqay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horreynna waxaa gudoomiyaha warbixin kooban halkaasi ku siiyay Komishineer Axmed Taani Xaaji Xasan oo kamid ah xubnaha gobolka Sool u yimi hawsha kala gurka shaqaalaha ay dawladdu qaadanayso maanta iyo shalayba waxa gudoomiyaha xafiis gobolka Ras Aanood lagu qabanayay dadka u tartamayay boosaskii aan shaacinay shaqaalaha dawladdu ay shaacisay dhammaan dadka Soomaaliland ka daawanayeen TV-da qaranka iyo idaacadda iyo TV-gaba si wanaagsan bay u socotaa dad aad u fara badan ayaa runtii soo xariistay inkana waa aragtaan oo dhammaan dadkan tubanay waxay ka dadkii walaaqaasitay ee soo buuxiyay shuruudo lagu talagalay waxaan imanayaa qofka inuu degree haysto marka wareysa inuu yahay muwaadin Soomaaliland inuu yahay waqtiga dambeelaanta haysto shuruudahaas ku xidhan qof secondary ma soo xariisan karo markaas insha Allah soo nagu socotaa وانا قول لقاري او markii koowaad ee lagu qabto gobolada bariga tartamo imtixaan waa markii koowaad la qabto waa gool ummadda reer Soomaaliland iyo dawladda ay xukuumadda Soomaaliland ee madaxweynaha hogaaminayo Axmed Maxamed ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayre Dirir ayaa ugu baaqay dhammaan dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee ka soo jeeda gobolka Sool alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah hamdan kasiiran dayba baarna fiihi walahi tobankii bishii shanaad ee 2012 xaruntii gobolka Sool baan joognaa waa maalin talaada si aad aragtaan ama ka daawan doontaan media qaranka waxa si toos ah noogu socda qabashadii araajidii 30kii boos ee loo qaadanayay hay'adaha qaranka iyadoo lagu qabanayo araajidii codsiga xarunta gobolka Sool ayna gacanta ku hayaan hawlwadeennada hay'adda shaqaalaha la soo egmaday iyadoo ay middaas ku eg tahay hadii la yiraahdo 17 bisha Abriil ah 5 galabnimo ay xidhmi doonto qabashada araajidu 18 iyo 19 la sameyn doono kala gurkii siifiyada wixii shuruudahan soo buuxin la reebi doono 20 bisha Abriil ay kale noqon doonto maalintii iskaamka ama imtixaanka loo fariisanayay marka hore waxaan u sheegnaa dhalinyarada gobolka rag iyo dumarba iyo aqoon-yahanada kaleba cid kasta oo daneynaysa shaqadan qaranka in ay CV-ga soo gudbisato qofkuna inuu ku saleeyo CV-ga shuruuda aanu ku dhajinay magaalada gudaheeda ama ay ku arkeen social media ama gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha uu hore uga sheegay war-saxaafadeedkii uu soo saaray shuruudahaas oo ka kooban 7 qodob oo warqadda ku yaala qofkuna haddii uu shuruudaha soo buuxin waayo oo shuruudaha halka ku qoran hay'adda shaqaaluhu ay soo dejisay qayb kamid ah oo CV-giisa ka ilaawo haduu eersan haduu hay'adda shaqaalaha eersanin iyo mas'uuliyiinta gobolka eersanin ragga imtixaanka qaadi doona iyo eersanin maxadka shaqaalaha waxaanu leenahay oo mar labaad ugu celinayna CV-ga markaad gudbinayso iska hubi inay ku dhameystirayeen 7 qodob ee halka ku qoran waa markii ugu horeysay ee gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo imtixaan 3 xubnood oo ka banaan hay'adaha dawladda lagu qabto magaalada Ras Aanood ee xarunta gobolka Sool waa Barkhad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland